bulshada gacalkee wanaagsan, bulshada garashada haleeshay, bulshada garabkaaga taagan, bulshada gaban iyo iroole, bulshada gaarka ku jeclaatay hadday guri ku dhisaan, gob iyo waa cadaade guddoon waa naga mudneede. waxaa tiriyey mid ka mid a abwaaniinta Soomaaliyeed ee lagu magacaabo abaan Cabdirasaaq Caafi. haddaba tixdaani waxay timid kadib markii lagu dhawaaqay ololihii guri u dhisidda madaxweynihii shacabka Soomaaliyeed ee xabiibul malaayiin loogu magac diray waa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba waxaa la soo bandhigay lana shaaciyey akoomo ay ku kala qoran yihiin madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Cabdirashiid Xaashi. akoomadu waxa ay ka kala tirsan yihiin bangiyada ka jira geyiga Soomaalida. haddaba dadka qaar ayaa waxa ay dhaliilayaan tallaabadan ay shacabka qaar ku dhaqaaqeen, iyagoo dhahaya waddanka Soomaaliya iyo dhammaan geyiga Soomaaliyeed waxaa diloota abaar, taas ayaana u baahnayd in maanta laga falceliyo. baahina uma qabo ayay leeyihiin madaxweyne $30,000 guri kira ku degan. dadka qaar iyaguna waxay leeyihiin madaxweyne xildhibaanadii dooranayay ku qarash gareeyay lacag la tuhunsan yahay inay gaarayso $150,000 alaa xildhibaan. waa sidaa dadka qaar qabaan. Soomaaliyey maanta waa maalin waxaana idin leeyahay Soomaalidu waxa ay naqatay waddankii Afrikaanka ahaa ee shacabkiisu garawsaday isla markaana go'aansaday inuu madaxweynihii xukunka ka degay ay u dhisaan guri, maadaama aysan jirin wax lagu soo eedeeyey oo masuqmaasuq ah, isla markaana aysan jirin wax hanti ah guri ama wax la mid ah oo waddanka Soomaaliya uu ku leeyahay iyo gebi ahaan caalamka. Soomaaliya maanta waxay rabtaa madaxweyne daacad ah, madaxweyne shacabka qalbiyadooda hanan kara. madaxweynaha hadda jira dadka qaar ayaa aad u taageersan, halka qaar kalena ay leeyihiin waddadii shala uu maray ee u badneeday boobka hantida shacabka ayaa weli laga urinayaa, waxaana dhici karta in uusan ka waantoobin tillaabadii shalay. halka dadka qaar kale ay aaminsan yihiin in madaxweynuhu waa kan hadda taagane oo Xasan Sheekh Maxamuud in cashir badan uu qaatay, isla markaana 4 sano oo waddanka xukumayay cashirada uu ka bartay oo ku darsada cashir kale oo ah 5 sano oo dusha ka daawanayay dowladdii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo madaxweynaha ka ahaa. daawadayaal, arrinkan sidaad u aragtaa adigu? hoos noogu qor fadlan. page-keena like iyo comment iyo follow iyo share intaba isugu dar. YouTube-kana subscribe-ta iyo comment-ga iyo like-ta iyadana aad ayaan ugu faraxnaa. waa mahadsantihiin.